nin gaashaan la dhaho oo booliis ah intuu imaaday xabadna kala daalay oo danahooda gaarka ay fiirsadaan waxaa dhici doonta tan too ka falxun in loo tagi doono. dhabarkayga dambe waxaa buux dhaafiyey boqolaal dhalinyaro ah oo kaxaysa mootooyinka kuwa loo yaqaano bajaajta waxaana saaka ay isugu soo baxeen banaanbax xoogan oo waxay cabasho ka yihiin leesin iyo sidoo kale warqadaha canshuuraha oo ay sheegeen in si xad dhaaf ah ama lacago xad dhaaf ah laga qaado. saaka saacado kooban halkan waxaa ka dhacay rasaas lagu kala eriyey dadkan banaanbaxa dhigaya ee dhalinyarada ah ee mootiileyda ahaa waxaana la sheegay in ugu dambeyn wax dhaawaca uusan ka dhalan laakiin gaadiid qaar ay ku burbureen. maraan halkan nimid waxaynu la hadalnay qaar ka mid ah shacabka waxaana ay ka hadleen dareenkooda ku aadan dhibaatada lagu hayo iyo waxa ay ka cabanayaan ee ah leesinka iyo warqadda boonada iyo dad ay sheegeen in ay soo gashtaan dariiska ciidanka dawladda ee lacago ka qaada. canshuurta $15 anada laba mooto wada laba mooto waxa laga qaadaa 15 iyo 15 laga qaadaa $30 lacag laga qaadaa marka $30 lacag diiba waxna ima soo noqdaan waxa qof bilaadka canshuuraha adduunka in qofka soo noqdaan la rabaa waxba ima soo noqdaan waxay aad in leesinka nolol raqiisiyo oo laga dhigay $20 adduunka Kenya hadda tagtay $20 way marka anagana waxa loo kor la sii wadaa $200 dhalinyaro badan dhibaato loo geystay kuwa la jir dilay kuwa qorbaadkiisa lagu tumay marka saas ah jirto waa lagu weydinaa buuga lagu weydinayaa niman leesin shaqo ku lahayn oo dhar booliis qaba intuu ku imaado wuxuu ku leeyahay leesinkaaga la bax or leesin ma shaqo ku leeyahay dhaadana qori intuu kugu soo taago wuxuu ku leeyahay riyaal leesinkaaga la bax hadda toosto leesinka waa ka dhacsan yahay maalin ama laba maalin oo ka dhacsan yahay $20 lacag tuur uu ku leeyahay war adoo maanta $1 ku shaqeynay $20 ma ka gooda waa ka tagay mid kale oo traffic ku qabanay wuu ku wadaa fish traffic ku geena $20 tuur lagu leeyahay war inaan noolaana rabnaa waxaas nolol miya sidee ugu noolaan aniga wadankeena waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda haaya ee macnaha ku shaqeeya wasaaradda gaadiidka waxay leesinka $300 haday toos wasaaradda gaadiidka uga dhacdo dhammaan ku qabneen dad kambaniyaal ah ayaa meel dhex kala baxo waxa musuqmaasuq wadanka dhex jira waa saaka dhibana loo geystay mootooyin ah meeshan ku baaba'ay gaari Cabdibilaas uu soo ordaayo oo booliis wato ayaa laba mooto isku dhuftay gabar mooto saarneed luga wax ka gaareen hadda nin gaashaan la dhexe nin gaashaan la dhaho oo booliis ah intuu imaaday xabadna kala daalay mootooyinka ay dhawada buuqsiin waa arki kartiin awashadaas waxa uu gudbinaynaa madaxweynaha inuu soo fargeliyo wadanka shaqo waa taalo yiri madaxweynaha ninka shaqaysan dhagax ka shaqeeyo oo wadanka shaqo ma taalo shiida ka jira wadanka shiid ayaa ka jiro dadkan ugu weyn waxa waaye in macnaha dawladda ay wax ka dhinto canshuurtana la ka dhimo leesinkana la ka qafiifiyo wadooyinkana loo furo maadaama aan nahay odayaal iyo dhalinyaro ku shaqaysta mooto bajaaja oo dakhli badan aan soo gelino dawladda xuquuqdii anaga aan lahaynana wili aanan helaynin xuquuqdii anaga dawladda aan ku lahayn wili ma helno sidaas darteed dhibaato ku jirna anaga meel marna male lacagtu waan lagu badiyay mootadan kaliya leesin iyo canshuur iyo buuga laga qaadaa wadooyinkan waa xiriin meel mar male dhibaatadaas maanta soo bixisay anaga horta meeqa la qaadi jiray canshuurta $7 iyo bara la qaadi jiray waagi hore yariisow hadda 15 laga dhigay yoonkii $1 waay bishii $30 waay 15 bila shaqeynayna ma fariinta adreesina maxay tahay fariinta antirina waxa waaye anagu waxaan nahay dad masaakiin ah oo xukunool ah dawladda waxaan ka rabnaa iyo gudoomiyaha gobolka in arinteena si ugu dhaxsiyaa badan leh ay wax u qabtaan haddii arintan iska dhiga tiraan oo danahooda gaarka ay fiirsadaan waxaa dhici doonta tan too ka falxun in loo tagi doono عمر قحر بين دقلصن مقدش